waan ku kalsoonahay in guushu ay dhowdahay waxaana ugu baaqayaa joogtaynta xasan sheekh maxamuud oo ku faanay arrin yaab leh xilli ay mucaaradka ku jiraan hubaar ruusi xoogan villa Soomaaliya oo ku howlan diyaarinta ciidamo gaar ah xiisada doorashada waji cusub yeelatay iyo wararkii ugu dambeeyay shirka xasan sheekh maxamuud oo ku baaqay oo mar kale fashilmay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku faanay arrin yaab leh xilli mucaaradku ay ku jiraan hubaar ruusi madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa isagu ku faanay in waxqabad weyn uu la yimid isla markaana dowladdiisu ay qaaday tallaabooyin horumarineed oo dalkii dowladnimada badbaadinayo iyadoo dhanka mucaaradkana hubaar ruusi iyo ziyaarin dagaal ay ku jiraan madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa ku faanay in mar walba ay dowladdiisu xoogga saarto wadahadalka siyaasadeed xilli ay haatan si weyn isku hayaan siyaasiyiinta mucaaradka oo sheegay in uu ka leexday dhabihii saxda ahaa ee dowladnimada Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay 2016kii bilowday dadaalo lagu xoojinayo wadahadalka siyaasadeed kuwaas oo horseeday horumar weyn oo laga gaaray hanaanka dimuqraadiyiin dalka isagoo tilmaamay in dadaaladu ay salka ku hayaan isku duubni siyaasadeed iyo dhageysiga talooyinka ay bixiyaan dhinacyada kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay munaasabadda Ciidul Adha isagoo xusay in bishii Juulaay 2023 uu isugu yeeray kulan watashi ah madaxweynayaashii hore ee dalka kuwaasi oo wixii uu dhacay hal sano kadib markii uu xilka qabtay wuxuuna u arkayay in midnimo siyaasadeed iyo wax wada tashi ay lagama maanta u yihiin jihayn dalkan Soomaaliya madaxweynaha ayaa sharxay in kulankaasi uu ujeedkiisu ahaa in dowladdu ay dhageysto talooyinka iyo aragtiyaha madaxda hore ee dalka uuna ahaa fursad muhiim ah oo lagu falanqeynayo arrimo masiiri ah oo saameynaya mustaqbalka dalkan Soomaaliya wuxuu hoosta ka xariiqay in wixii ka dambeeyay wadatashigaasi ay dalka ka hirgeliyeen horumar la taaban karo oo la xiriira dimuqraadiyiinta kuwaas oo xusay inay yihiin kuwa lagu xoojinayo dowladnimada iyo kala dambeynta tan iyo markaasi horumar weyn ayaa laga sameeyay hanaanka dimuqraadiyiinta iyadoo loo marayo hay'adaha dowladda Suuriga ah ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweyne xasan ayaa mar kale cadeeyay in albaabka wada hadalka uu yahay mid mar walba furan isla markaana aysan dowladdiisu xiri doonin si loo helo isfaham qaran oo ku saleysan tala wadaag wuxuuna intaasi ku daray in gogasha watashiga siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha bulshada la qaban doono 15 Juun 2025 magaalada Muqdisho oo ka dhici doono madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay dhammaan daneeyaasha siyaasadda bulshada rayidka iyo madaxda dhaqanka inay ka qayb qaataan gogasha wadatashiga si loo xoojiyo hanaanka dimuqraadiyiinta iyo horumarka qaranka isagoo tilmaamay in midnimo iyo wada hadal lagu gaari karo xasilooni iyo horumar waara inkastoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku faanay in uu mar walba wada hadal diyaar u yahay una wada hadalkaasi horay horumar u dhalay horumar badan haddana waxaa muuqatay muddooyinkii dambe wababada ka xirtay mucaaradka isagoo ku dhaqaaqay hanaan doorasho oo loo dhameyn isla markaana uu wax ka bedelay dastuurkii dalkan lagu heshiiyay laguna soo doortay dhanka mucaaradka dhammaan way beeninayaan hadalka madaxweyne xasan waxayna u arkaan kuwa isaga isku xayeysiinayo marka loo fiiriyo dhammaan aysan waxba ka jirin in madaxweynuhu wada tashiga uu jecel yahay marka loo eego dhaba hadda uu qaaday inay ka dhigan tahay in dalka halis weyn ugu jiro kala tag bulsho iyo siyaasadeed maadaama dowladnimadii Soomaaliya la isku dulmiyay sida ay aaminsan yihiin inta badan siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya dhinaca kale mucaaradka waxay wadaan hubaar ruusi iyo sidoo kale diyaar garow dagaal oo ay la galaan dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii madaxweyne xasan uu ku adkeystay inaanu mar dambe uusan dib uga laabanaynin qorshihiisa doorashada qof iyo codka ah maadaama uu sheegay in dalku ka soo daalay nidaamka doorashada dadban oo muddo dhowr sano uu soo waday arrintan ayaa jawaab u ah gogashii madaxweynaha uu fidiyay ee wadatashiga ahaa waxayna hadda mar kale u muuqataa in hubanti la'aan siyaasadeed dalku lagu hawlo sii galayo taasoo mucaaradkuna ay ku hanjabeen inay ka hortagayaan qorshaha dowladda siyaasiyiinta mucaaradka war-saxaafada sare ayaa ka hadlay arrin culus oo ay ku hoolan tahay dowladda federaalka Soomaaliya taas oo la xiriirta hanaanka loo wajahayo dhismaha guddiga cusub ee xuquuqul insaanka Soomaaliya madasha samata bixinta oo ay ku mideysan yihiin inta badan xubnaha mucaaradka ayaa bayaankan walaac xoog leh uga muujiyay sida loo dhisayo guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka oo su'aalo iyo shaki laga muujiyay hanaanka loo marayo
madasha samatabicinta Soomaaliyeed waxay walaac xoogan ka muujinaysaa hanaanka loo marayo xulista xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka ayaa lagu yiri bayaanka. sidoo kale mucaaradka ayaa tilmaamay in qaabka wax loo wado gaar ahaan xulista xubnaha guddigan ay balmarsan tahay dastuurka iyo shuruucda dalka ayna ka digayaan. xulista xubnaha guddiga oo ka mid ah guddiyada madaxa bannaan ee dastuuriga ah ayaa si caada u balmarsan qodobada 41 iyo 111 ee dastuurka milgaarka ah oo dhigaya in baarlamaanka federaalka uu dhiso guddi xuquuqul aadanaha ah oo u qaybsan oo ka madax bannaan maamulka dowladda ahaadana mid loo dhan yahay la sii raaciyay. madashu waxay kaloo intaas ku dartay in villa Soomaaliya iyo xukuumadda ay dhisayaan guddi maqaar saar ah isla markaana laga leeyahay dana siyaasadeed oo gaar ah sida hadalka ay u dhigeen. waxaa kale oo ay madasha soo jeedisay in la hakiyo xulista guddigan ilaa inta laga helayo waddo sharci ah oo loo maro dhismaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka. ugu dambeyntii waxay baaq u direen dowlad goboleedyada difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo si guud marka loo eego beesha caalamka oo ay ka dalbadeen inay isha ku hayaan dhismaha guddigan cusub. dhowaan ayaa la shaaciyey imtixaan la sheegay in laga qaadayo xubno u soo gudbay wareegga ugu dambeeya ee ku biirista guddiga, waxaana ka soo muuqday xubno ka tirsan xukuumadda uu ka mid yahay afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale. taasi waxay keentay in shaki weyn la geliyo hanaanka dhismaha guddigaasi. dhinaca kale villa Soomaaliya waxaa lagu eedeeyay diyaarinta ciidamo hor leh oo ay ugu talagaleen lagu cadaadiyo laguna cabsi geliyo xubnaha mucaaradka Soomaaliya. dowladda federaalka ayaa hadda wada dhameystirka ciidamo cusub oo la xaqiijiyay in la wareegi doonaan amniga caasimadda Muqdisho, kuwaas oo intooda badan culays saari doona sida la sheegay cidda lidiya kuwa amniga caasimadda. hase yeeshee xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka waxay aaminsan yihiin in ciidankan ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagu qalqalgeliyo laguna cabsi geliyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya. ciidan isku dhaf ah oo isugu jira haramcad, booliiska caadiga ah iyo nabad sugidda iyo sidoo kale booliisiya militaro ayaa lagu xareeyay xerada Hiilweyne ee Muqdisho, waxaana halkaas ugu soo dhamaaday tababar iyo wacyigelin muddo socday iyadoo saraakiisha hoggaamineed la diyaarinayo hadda lana filayo ma soo aadan inay ka howlgalaan gudaha magaalada Muqdisho. arrintan walaac iyo cabsi horle waxay ku abuurtay xubnaha mucaaradka oo iyagu dareensan in ciidankan madaxweynuhu uu dhiibanayo saraakiil isaga ku hayb ah, taasoo loogu talagalay in lagu cadaadiyo ama ugu yaraan lagu cabsi geliyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya, taasoo ay sheegeen inay tahay mid baalmarsan nidaamka dowladnimada iyo in ciidanka siyaasad loo adeegsanayo sida ay qabaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya. Muqdisho waxay gelaysaa maalmo kaloo adag iyo isku birtumasho dagaal siyaasadeed ah, taasoo mucaaradka dhankooda abaabul ay wadaan oo ciidamada ku diyaarsanayaan, halka dowladdan ay wado qorshe ciidan cusub ah amniga caasimadda gacanta loogu gelinayo. saaxiibayaal daawadayaal, wanaga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka, tan iyo kulan dambe waxay kaga tageynaa sidaas nabadgelyo.